faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay gaari loo adeegsaday qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay dhabarka dambe ee guriga hooyooyinka ee ku yaalla magaalada muqdisho. qaraxa ayaa ka dhacay laamiga isku xidha isgooska Shabeelle ilaa iyo beerta nabadda, waxaana qaraxan uu sababay khasaare nafeed. halka uu ka dhacay ayaa qaraxan waxa ay tahay ka soo horjeedka maqaayadda Geeldoox, waxaana halkaasi ku yaalla masjidka Sheekh Cabdiqaadir. xilliga qaraxa uu dhacayay waxay goobta ahayd meel mashquul ah oo mootooyinka ay isticmaalayeen. wararka hordhacaha waxay sheegayaan in khasaare dhimasho iyo dhaawac u jiro kaas oo ka dhashay qaraxan, waxaana sidoo kale halka qaraxa uu ka dhacay kaagdhow goob ay dumarkay ku iibiyaan qaadka. wararku waxay intaas ay ku sii darayaan in qaraxan oo jugtiisa laga maqlay qaybo badan oo muqdisho ka tirsan uu gaari ahaa, waxa uuna si gaar ah uga dhacay gidaarka dambe ee guriga hooyooyinka, kaas oo ah goob amnigeeda aad loo ilaaliyo.